halkan waa Muqdisho Soomaaliya oo aad kala socotaan BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya kaasoo hawada si toos ah uga dhageysanaysaan. maanta oo maalin Isniin ah taariikhda milaadiguna ay ku beegan tahay 23 bisha May ee 2016 taariikhda hijriguna ay ku beegan tahay 16 bisha Shacbaan 1437 waxaad ku soo dhawaataan warkii saacadlaha. maanta oo maalin Isniin ah waxaa magaalada Istanbul ee caasimadda waddanka Turkiga ka furmay shirkii ugu horeeyay ee bini'aadanimada adduunka waxaana shirkani ka soo qayb galay ku dhawaad 6,000 oo wufuud ah kuwaasoo ka kala yimid dunida dacaladeedii waxaana diiradda lagu saari doonaa sidii loo horumarin lahaa hanaanka bini'aadanimo. shirkani ayaa ka soo qayb galay madaxda dalalka intoodii badan hay-adaha gargaarka iyo bulshada noocyadeedii kala duwan waxaana sidoo kale diiradda lagu saari doonaa shirkani sida wax loogu qaban lahaa dhibaatooyinka dhaqaale ee wadamada qaarkood aafeeyay iyo sida ugu habboon ee loo gaarsiin lahaa dadka aadka ugu baahan. Binali Yildirim ayaa loo magacaabay inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga AK. xisbigani ayaa ah xisbiga hadda haya talada dalka Turkiga. hogaamiyahani cusub ayaa sheegay in uu si wanaagsan ula shaqayn doono madaxweynaha waddankaasi ee Turkiga asigoona sidoo kale sheegay in shaqada ugu weyn ee dalka Turkiga u taala ay tahay in wax laga bedelo dastuurka waddankaasi. wararka qaar ayaa sidoo kale sheegaya in Mastal Yildirim lagu wado in uu noqdo ra'iisul wasaaraha waddankaasi ee Turkiga. wali halka aad nagala socotaan waa BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. waddanka Gariiga ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka jiray dood u dhaxaysay baarlamaanka waddankaasi. doodani ayaa ku saabsaneyd isbedelo dhaqaale dheeri ah oo laga sameeyo waddankaasi. doodani u dhaxaysay baarlamaanka waddanka Gariiga ayaa imaanaysa kadib markii dhaqaalaha waddankaasi uu si xumaanayay waxaayna wararku sheegayaan in doodani ay ka soo baxeen qodobo ay isku raaceen baarlamaanka waddankaasi. ra'iisul wasaaraha waddanka Gariiga oo lagu magacaabo Alexis Tsipras ayaa sheegay in qodobada la isku raacay doodaasi ay muujinayso in Gariigu uu ka dhaweeyay talaabooyinkii dhaqaale ee uu ballan qaaday. ciidamada badda ee Liibiya ayaa soo qabtay doonyo badan kuwaasoo aan sida uga fogeyn xeebta magaalada Sabrata. wararka ka imaanaya waddanka Liibiya ayaa sheegaya in doonyaha la soo qabtay dadka saarna ay gaarayeen ilaa iyo 850 ruux kuwaasoo lagu sheegay in ay ku jireen 11 oo caruur ah iyo tiro lagu qiyaasay 65 oo habeen ah. dowladda Liibiya ayaan ilaa iyo hadda cadeynin wadamada ay ka soo kala jeedaan tahriibayaasha ay soo qabteen. soo qabashadan tahriibayaasha oo ay soo qabteen ciidamada badda ee dalka Liibiya ayaa imaanaysa kadib markii ay midowga Yurub ay sheegtay in dowladda Liibiya ay ka gacan siin doonaan sidii loo xakameyn lahaa tahriibayaasha ku baaba'aya badda u dhaxaysa Liibiya iyo Talyaaniga. wali halka aad nagala socotaan waa BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in uu dalkiisa cunuqabataynta ka qaaday waddanka Vietnam. hadalkani uu ka dhawaajiyay madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama ayaa imaanaya xilli uu booqasho ku tagay waddanka Vietnam oo uu halkaasi kula kulmay hogaamiyaha waddankaasi. Mareykanka iyo Vietnam ayaa xiriirkoodii sii wanaagsanaanaya iyadoo ay wararku sheegayaan in Mareykanka uu doonayo in uu xulafo ka samaysto wadamada ku yaala badda Pacifica oo ay ka mid tahay Vietnam. dowladda Vietnam ayaa muddo badan ku doodaysay
in laga qaado cunaqabataynta laga saaray hubka halista ah, ayadoona Obama uu hadda ka dhawaajiyay in ay dowladdiisa ka qaaday cunaqabatayntii saarneyd Vietnam. wararka ka imaanaya dalka Syria ayaa sheegaya in ugu yaraan 65 ruux ay ku dhinteen, tiro intaa la egna ay ku dhaawacmeen qaraxyo waaweyn ee ka dhacay dalka Suuriya. wararka ka soo baxaya qaraxyadani ayaa sheegaya in ay ka dhaceen magaalooyinka Tartus iyo Jable. qaraxyada intoodii badan ayaa geystay dad isqarxiyay sida ay wararku sheegayaan. sidoo kale warbaahinada ka howlgala dalka Syria ayaa sheegaya in meelaha qaraxyada lala bartilmaameedsaday ay qayb ka yihiin goobaha laga raaco basaska, ayadoona ilaa iyo hadda aysan jirin cid sheegatay inay ka dambeyso qaraxaasi. waxaana intaasi noogu dhammaaday warkii saacadlaha oo aad kala socoteen BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. ciduu dhaafana waxa ay dib uga heli kartaa barta aynu ku leenahay internetka oo ah www.bssmainsomaliya.com.